بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسنا وعن مeel kasta adduunka joogtaan. ma tahay qof isku kalsoon, ma tahay qof og waxa uu rabo, ma tahay qof haybad leh, ma tahay qof karaamo leh. dabcan jawaabtu waxay tahay haa waa tahay. oo maxaa yeelay Allah na abuuray subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay inuu bil aadanka karaameeyay. walaqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri. إلهي سبحانه وتعالى وحولي حقيق ديوان كرامين بني آدمك وحان سيدو كالا أسهلني بدأ يبرغن وان أسهلني ورزقناه من الطيبات وحيالون ونكسن وان كوقودنا أوسيني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وحبضا وآن أبورنين وان كفضلني. الله أكبر. ولا الإلهي سبحانه وتعالى شرف أيوكسيي، إلهي سبحانه وتعالى كرامة أيوكسيي. وحاصل لا يابله دد بدني مؤجة هيبدأ يكرامة إليهن. ما أفرستين حيوانك، لما حيوان أيان تصالوا سوق هذا قرقرك أما هذا وحال إلى هذا وبقرك شمبرها. وح عجيبة شمبركاس مركا أودولا يو إنه أود اللي هي إنه عبسيج ليو حيوانك أردن. بل دوعada ayuu dafaa shimbiraha kalena way kala yaacaan bal iska dhaafay badda dhaxdeeda ayuu kalluunka ka dafaa wuxuu maxaa yeelay sababtu maxay tahay muxuu uga duwan yahay shimbiraha kale ma aha shimbiraha ugu weyn oo ugu culus ma aha shimbirka ma taqaana ugu ballaaran shimbiraha laakiin wuxuu haystaa kalsooni ayuu haystaa taas ayaa adigana ka maqan waxa loo baahan yahay kalsoonidaada inaad dib u soo ceshatid kalsoonidu ma ahan wax dibadda kaaga imaanaya waa wax adiga kugu dhex jiro ma aragteen ilmaha yar marka uu jiro 6 bilood ama uu jiro sanad cabsidan ma lahan mas libaax wixii loo geeyay uu la dhex ciyaaraya korku ka foolaya maxaa yeelay kalsoonidiisa ayaa ku jirta dadka badankood kalsoonida waxay ka raadiyaan banaanka laakiin kalsoonida adiga ayaa kugu dhex noosha aanu usoo tusaale kale usoo qaadano boqorka habardugaag waxa la yiraahdaa xayawaanka oo dhan waa taqaanaan waa libaaxa wuxuu leeyahay sifooyin cajiib ah oo uu kaga duwan yahay xayawaanka kale qalini waraaq soo qaado xasuusana mar walba ma ogtahay libaaxa inuusan ahayn xayawaanka ugu dheer habardugaag inuusan ahayn xayawaanka ugu dheer waxa ka dheer tusaale kale gariga ayaa ka dheer cajiib ma ogtahay libaaxu inuusan ahayn xayawaanka ugu ballaaran ama ugu weyn ee habardugaag dabcan waxa ka weyn oo aad aragteen maroodiga ayaa ka weyn ma ogtahay inuusan ahayn xayawaanka ugu culus waxa ka culus jaarta ayaa ka culus cajiib saasay tahayna marka uu xayawaanka ku soo baxo kulligood way kala yaacaan xayawaanka uu rabana wuu dilaa wuu lagtaa maxaa yeelay waxa ka muuqata haybad waxa ka muuqata kalsooni xayawaanka hadduu sidaas yahay adigoo bil aadanna maxaad u malaynaysaa waxa weeye waxa loo baahan yahay inaan dib u noolayno awoodda nagu dhex jirta waxa loo baahan yahay naftaada inaad runta u sheegtid waxa loo baahan yahay in aad cadawgaada koowaad oo naftaada ah aad ka adkaatid walaal cidnaha eedaynin saaxiibka ha eedaynin alla saaxiib xun baan leeyahay alla waalidkay waxba ma soo barin alla aniga ma aragtay fursad ma helin may naftaada eeday fursad waad haysataa ilaahay caafimaad buu ku siiyey caqli ayuu ku siiyey ilaahay wuu ku karaameeyey fadhiga waa inaad ka kacdaa haddii aadan ku faraxsanayn shaqada aad haysatid ka bedelo ka tag haddii aadan ku faraxsanayn magaalada aad ku nooshahay ka tag oo ha joogin oo ka guur yaa kugu qasbay yaa ku haysta waxa kaloo la yaab leh shaytaan maalinta qiyaame marka maxkamadda la iskeeno oo jahannama ka khudbeeyo oo ka dhaxlo ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu ibraahim noogu sheekeenayo waqala ash-shaytaanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum markaas waxa ku jirtay fala talumuni walumu anfusakum war aniga hay eedaynina in fiina eedaya idinka ayaa mas'uul ka aha aniga maxaan sameeyay waa ina yeeray idinkana waad ajiibteen saaxiibkaada xun haduu xaflad kugu yeero haduu fasaad kugu yeero haduu qurun kugu yeero aad raacdi saaxiibka ha eedaynin naftaada eeday cid kugu qasabtay ma jirto mas'uuliyadda adiga ayay ku saaran tahay saas darteed waxa loo baahan yahay fadhiga inaad ka kacdid waxa loo baahan inaad kalsooni muujisid dadku waxay ka sheegayaan dhaga jalaq hawseenin insaanka mar walba wuxuu ka sheegaya laakiin waxa loo baahan yahay in aad noqotid qof mabda leh mowqif leh balan leh naftiisa ka adag bilowga hore way kugu adkaanaysaa laakiin marka aad naftaada xakamaysid oo aad cudurkaada ogaatid daawada waad helaysaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay dad badan maanta ma rabaan runta inay maqlaan mawduuciyada qofka runta u sheegaya ma dhageystaan waxay ka jecel yihiin waxyaalaha maaweelada iyo maalayacniga
saas darteed waxa loo baahan yahay haddaad aragtid qof wax kuu sheegaya ka qaado ha iska dhaga tirin naftaada la xisaabtan goormaa kugu dambaysay inaa intaad meel fadhiisatid aad naftaada la xisaabtantid way yar tahay laakiin fadhi ku dirirada marka reer hebel la gaaro marka doorashada Puntland joogto marka farmaajo khayr joogto awood ayaad leedahay waxa weeye waqtigaada waad ku luminaysaa waxaad isweydiisaa dadka ugu taajirsan adduunka Bill Gates soo qaado raggan kala soo qaado ninkan hadda Facebook iskala soo qaado kulligood waxa weeye waxa naga wada dhaxeeya wax la yiraahdo 24 saac adigu marka muxuu yahay dowrka aad nolosha ku leedahay ma wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray inaad noqotid mid dulaysan mise Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu rabaa inaad noqotid qof awood leh oo adduuniya aakhiraba u shaqeysta dabcan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaag ayuu kula rabaa laakiin waa inaad fadhiga ka kacdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay i'maluu war amal sameeya fa kullu muyassarun lima khuliqa lah qof walba waxa loo fududeeyay waxa loo abuuray marka waxa loo baahan yahay inaad naftaada la xisaabtantid maxaan ku fiicanahay maxaan ku fiicnayn waa inaad naftaada runta u sheegtaa laakiin inaad shaati xiratid facebookna soo fadhiisatid sawir qurxoon soo galisid aadan meesha waxba ku hayninna wax ku anfacay maahan naftaada ayaad khayaamaysaa waxa la gaaray xilliga aad naftaada runta u sheegi lahayd waxa la gaaray xilliga aad xakamayn lahayd naftaada walaalayaal waxaanu facebook ku isticmaalnaa maalin kasta ama social media ku isticmaalnaa in ka badan 8 saac waqtigeena waa wax aad iyo aad u fara badan waxa loo baahan yahay waqtigeena inaan ku xisaabtano inaan ka faa'iideysano midda kale dadka wax u faa'iiday naftaada u faa'iiday khayrka ka shaqee wanaaga ka shaqee hadii aad noqotid qof wax ma maqla ah dhib badan isla markaana wax walba negative ka dhigaya dadka qaarkood wanaagii ay xumaan u bedelayaan sheekhi waxa la leeyahay ha sheekh buu iska dhigayaa culimadii ayaa la caynaya ninkii ma taqaana siyaasiga waxa la leeyahay waa tuug qofkii ma taqaana masaakiinta caawinaya waxa la leeyahay waa tuug wax walba waxa laga dhigaya negative waxa loo baahan yahay inaad noqotid qof nolosha la qabsan kara la jaan qaadi kara aad iyo aad ay u mahadsantiin tan iyo kulanti dambe wacan waxay idin rajaynayaa khayr xasuusnaa inaad wanaaga sii faafisid xasuusnaa inaad page-kayga like saartid isla markaana sii subscribe ii saartid rugtayda YouTube aad iyo aad ay u mahadsantiin